السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود حنتني ملك سؤال جوكتا وحائد لنا قصة هذا قيبت لبعض برنامج كأنه عندنا تاريخ ذا دلك سوماليا. تاريخ ذا مروة بسحر وبرته وحني سوجيديو أنا قا حسين محمد حسيري لقى كاميرا وحاجة تاجر مروة بساحب كين محمد داري تمديدكم عارف مصر هو إسكيل لها هذا بتعوشه تاريخ حان دلك سوماليا وحول حان شر مقعيو فربادان مقعيو ذا سوء كلا دولكي أدجونا دولكي إيبي دولكي جيسك أفريقيا dalka Soomaaliya caasimadaha ka koobnaa jirtay hadaba maxay kala ahaayeen caasimada koowaad waa magaalada Muqdisho caasimada labaad waa magaalada Hargeysa ee gobolka Waqooyi halka tan saddexaad ay tahay Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose halka tan afraad ay tahay Burco halka tan shanaadna ay tahay Baydhabo goboladii ugu horeeyay ee hornimada qaadatay dalkeena waxa uu ahaa gobolka Waqooyi waxaana hornimada qaadatay 26 Juun sanadii markay ahayd 1960kii halka gobolada koonfureedna hornimada qaadatay 1 Luulyo 1960kii Goyadina daysay لحيا لبعتك جوا normal rulanay لحدي ساعة normal libanay قاعدة اليوم لبا مدولي normal labnanay لحدنكي goyadina daysay لحيا لبعتك جوا normal rulanay لحدي ساعة normal libanay قاعدة اليوم لبا مدولي shirkii gumeystayaasha Afrika ee lagu qabsaday Afrika ee ka dhacay Berlin 1884 ayaa dalka Soomaaliya loo qaybiyay 5 qaybood waxaana shantaasi qaybood ay kala ahaayeen gobolka Waqooyi oo la siiyay ama loo gacan galiyay gumeystihii Ingiriiska halka gobolka Koonfureedna loo gacan galiyay gumeystihii Talyaaniga halka xeebta Soomaaliyeed oo had la magac baxay Djibouti loo gacan galiyay gumeystihii Faransiiska halka NFD oo iyadana la siiyay dalka Kenya iyo goboladii lisku oran jiray Soomaali galbeed loo gacan galiyay dawladda Itoobiya isku wada duudub goboladan shanta ka koobneed waxaa la isku dhigi jiray gobolada Soomaaliyeed gobolka shanta Soomaaliyeed taariikhdu markii ay ahayd 27 Juun 1977 ayay Djibouti hornimada qaadatay waxaase wali gacanta gumeystaha ku jiray Soomaali galbeed iyo NFD hadaba markii ay hornimada qaadatay gobolada koonfureed sanadii 1960kii waxay ahaayeen 6 gobol oo kala ah gobolka Naadir gobolka Hiiraan gobolka Mudug iyo gobolka Bari sidoo kale waxaa
kusoo darsamay goboladii waqooyi iyaguna isla sanadkaasi xornimada qaadatay waxayna ku soo darsadeen koonfurta labadii gobol ee xilligaasi laysku oran jiray gobolka waqooyi galbeed iyo gobolka togdheer noqdeen gobolada jamhuuriyadda 8 gobol markii uu kacanka militariga ahaa dalka qabsaday ee la qaaday ololixii loo magac daray ama loo magac bixiyay horumarinta reer miyiga sanadii 1973 lama laga gaaray sanadii 1974 xilligaasoo ay timid baahi weyn loo qabay in la magacaabo gobollo kale markaas kadib 8 gobol lagu kordhiyay 7 kale waxayna tirada gobolada ka noqdeen 15 gobol bilowgii sanadii 1980 waxaa lagu kordhiyay gobolka Jubbada Dhexe dabiiqadii 80-maadkii iyana la magacaabay gobolada Sool iyo Awdal xilligaasoo tirada gobolada dalku noqdeen 18 gobol Xuseen Maxamuud Xuseen Yare kulanka dhalinyarada Muqdisho